Tuulin isugu jirtay heer gobollo iyo heer degmo uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Erara ayaa hawlo shaqo ku gaadhay mashruuca weyn ee jidka laamiga ee dhaxmaro gobolka Erara. Mashruucan weyn ee jidka laamiga ah isku xidha degmada Baabile iyo degmada Iimay Bari ee gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida oo si dhaxmara degmooyin tiro badan oo hoos yimaada gobolada Erara iyo Nogobo ayaa waxa uu jidkani lafdhabar u yahay horumarka goboladana iyo guud ahaanba deegaanka oo dhan. Shaqada jidkan ayaa waxay maraysaa meel wanaagsan waxaana la bilaabay dhigista qaybtii u horeysay ee laamiga. Haddaba gudoomiyaha gobolka Erara oo ay wehelinayeen gudoomiyaasha degmooyinka gobolkaasi iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta heer gobollo ayaa waxay kormeer shaqo ku gaadheen habka ay u socoto shaqada jidkani kadib markii ay soo gabagabeeyeen shirkii qiimeynta warbixinta waxqabadka 6 bilood ee la soo dhaafay oo maalmihii u dambeeyay uga socday degmada Fiiq ee xarunta gobolka Erara. Waxaana nooga warbixiyay ujeedka kormeerkoodan gudoomiyaha gobolka Erara injineer Maxamed Shukri Axmed Sheekhe. waxaan kormeer ku soo baxnay wadada laamiga ee Fiiqeed Baabile Fiiq la Iimay wadada laamiga ah ee bilaabeen kambanigii waday maalmahan u joognay qiimeyntii degmooyinka oo dhan oo noo joogay marka dhamaantaano waxaan ku soo baxnay moral gelintooda iyo kormeer iyo indhandhan aan ku aragno wadadu heerkay marayso hadda waxay noo sheegeen ilaa 16 kilomitir inay maalmaha soo socda ay laamida dhigi doonaan haduu ilaahaydo bilaabi doonaan 16 kilomitir oo diyaarsan tahay waa la garanayaa Fiiq ruuxa Baabile ka yimaada ama Jigjiga ka yimaada masaafada iyo inta ay isu jirto 100 iyo Jigjiga 180 kilomitir waxa laga yaabaa waqtiyada qaarkood anigu waan soo maray iyadoo 8 bari 9 bari Fiiq iyo Baabile loo kala socdo inuu gaadiid yimaado waqtiyada roobku doo gaadiidka ugu fudud 7 bari 6 bari soo socon jiray waxa ahaan gawaarida qabaalada yar yar dhiiqadu intay qabatay bari jiray habeeno waxay noqon doontaa ugu badnaan 45 daqiiqo in Baabile Fiiq loo kala socdo haduu ilaahaydo waxay wax ka bedeli doontaa dhaqdhaqaaqa iyo dhaqaalahaba. Gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Erara ayaa ka hadlaya ahmiyadda uu jidkani u leeyahay iyo sida ay warkaana. qaybtan waxay diyaariyeen 16 kilomitir oo ay sheegeen toddobaadka soo socda laamida dhigi doonaan. sidoo kale lotri ba ku xigay iyaguna oo isla Yoteka iyaga laftoodu hawlo fiican bay wadaan. dhanka kale shirkad Macro leeyahay iyadana xaggan kale kaga xigta oo tan ilaa xamara qaabilsana kuwa laftoodu shaqada fiican bay wadaan. marka waxaan aaminsanahay yani shaqadan qaabka ay u dardargeliyeen iyo yani say u socoto inay durba yani wadadan ay dhamaan doonto hadii ilaahay waqtigii loogu tala galay inay dhamayn doonaan. annaguna had iyo jeer yani kormeer baan ku sameeynaa waan la soconaa qaabka ay u shaqeeyaan iyo waan dhiirigelinaa shaqaalahooda. maalmahan waxaan ku jiray shirkii qiimeynta 6 bilood ee gobolka maanta waxaan halkan aan u nimidnay inaan soo booqano wadadan isku xidha gobolka heerka ay marayso wadadu kulli sida idin muuqata meel fiican bay maraysaa wadadana waxay wax ka bedeli doontaa guud ahaan nolosha mataqaanaa dadka ku dhaqan gobolkan waxay wax ka bedeli doontaa isu socodka degmooyinka gobolka. wadadani waa wado maxay ahayd aad muhiimad ugu aha si fiican maxay ahayd hadda shaqadeed u socoto anaguna ka degmooyin ahaan waxaan in aan soo booqano soo indheendheena halka ay marayso ayaan u nimidnay maanta marka tani waa aad farxad maanta iigu aha aniga oo garanaya oo soo ogaa taariikhdii iyo xilligii iyo meeshii ay maraysay wada xumida iyo heerka ay marto wadadu heerka ay maraysay marka hadda maanta waxaan oran karaa waa cusub bay noo bariyay. waxaan ognahay xaaladii wada la'aan iyo dhibaatadii loo soo maray ee ka jiray gobolkan guud ahaantii gaar ahaan xarunta gobolka iyo caasimadda deegaanka iyo ilaa Itoobiya kale guud ahaanteed waxaan garan karaa dhibaatooyinkii la soo maray oo farbadnaa laakiin maanta laga bilaabo waxaan rajaynaynaa inuu noqdo waa cusub oo u bari guud ahaan gobolka. halkani waa jidka laamiga ah isku xidha degmada Baabile iyo degmada Iimay Bari ee gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida. halkani waa duleedka degmada Fiiq ee xarunta gobolka Erara. sidaad aragtaan waxaa la bilaabay qaybtii ugu horeysay ee laamiga. haddaba jidkan ayaa noqon doona mid wax weyn ka bedela isu socodka dhinaca gaadiidka ee gobolka Erara. haddaba sidaad arkaysaan waxaa jidkan saaka soo booqday mas'uuliyiinta maamulka gobolka Erara oo ay wehelinayeen dhammaanba gudoomiyaasha degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Erara si ay moral gelin u sameeyaan shaqaalaha ka howlgala jidkani. Cabdikaafi Axmed Weli telefishinka caalamiga ah ee SRTV duleedka magaalada Fiiq.